27 bishii hore ee May sanadkan ay ahayd markii Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirka golaha wada tashiga qarankaas oo maalmo ka soconayay tendada afisyoon ee magaalada Muqdisho. Shirkaasi ayaa waxaa looga gol lahaa xalinta tabashooyinka ka dhex jira madaxda Soomaalida ee heshiisyada doorashooyinka sida gudiyada doorashooyinka oo muran ay ka keeneen musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Waxaa durba bilowday dhaqangelinta heshiisyadii sida uu ballan qaaday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble kadib markii uu magacaabay guddi dabagal ku sameynaya xubnaha lagu muransan yahay ee ku jira guddiga doorashooyinka labada heer. Haddaba maxay ka qabaan aragti ahaan bulshada Soomaaliyeed arrimahaasi? Waxaan su'aalo ku aadan arrimahaasi oo aan hordhignay bulshada reer Muqdisho ay nagula wadaageen muuqaalbaaya VOS waa kuwan iyagoo ka hadlaya aragtiyadooda. Wallahi aad soo dhaweynayna maadaama shacabka Soomaaliyeed aan nahay oo ku qanacsanahay sidoo Ra'iisul Wasaare wax u wado waxaan ka rajaynaynaa guul insha Allah. والله كل هذا أصلا هرمود وإحنا رجينا كل إن واحد بدل وقسمه صوت ما دام واحد بدن ولا قاعد عباش بدن كإمات مع الجولة ده إن إسفان كجارنا رجينا إن شاء الله. كنتي وأركي على السوشيال ميديا أنكو أركي لحنا يتوقف ونجسوا قدبي ملينا أيو لحنا يتوقف حتى معناها طبعا يتوقف حتى صورة قلب ما إسكده وحاس قف والبق اللي قدبي أي عباشة اللي قدبي عباشة هذه مركب حنو فهمي قف والبق اللي قدبي أي عباشة اللي قدبي ساسنا ما قرح بنا قف يعني شغالة هاي كميد إن لقى قدبي ولا قف في عين هاي حتى قوة أنت يعني أركيني أو لقى سو قدبي وحكى له أركي محائر هذا قوة عن كتر سنين ومعناها قف اسكم مدح بنانا أو واحد الله وحو أد وليه هاي فلاش وكو أركي لكن ما أقان سيدا يكون على اللحن تضاد وواحد لا يابا وعقبات كلو عصوم على فاهم كريم واي ولا وكوين تاي عباشة وكوين تاي سياسات لا تاس والله ارتوا سو دويننا waxa bedelka aad iyo aad ayaan soo dhaweynaa codsiga soo codsadeen musharaxiinta waxaan jecelnahay in la soo dhaweeyo bacdama shalay waxa la soo qabsaday waa doorashadeed wixii laga soo maray waa loo yahay marka aniga waxaan ku bogaadi lahay wax ka bedelkooda ay tabanayaan in wax laga qabto bacdama dalka doorasho rab inuu galo sababtoo ah wadankan marxalado badan ayuu soo maray isqabqabsi dambe iyo ma dooneyno marka waxaan rabnaa in doorasho toos loo aado iyadoo doorashadaas ay tahay mid xalaal ah oo ahayn mid oo fargelin shaqeeyna lahayn waxyaalo badan oo soo maray lahayn ayaan rajaynaynaa insha Allah taala Khadra Ali Jumcaale VOS TV Muqdisho.